walaalayaal sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman midkaynu isku baraarujinayna ayaamahan soo socda waxa weeye al-isticdaadu liramadaan bisha fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayna ramadaan waxaynu ogsoonnahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigayaa oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin nin waliba wuxuu u diyaargaroobaa siduu alaabtaa jaban u soo iibsan lahaa talagalna uu sameeyaa hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba maruu fiirsa raadsado maruu lacagtii uu ku soo iibsan lahaa baadi doono maruu wakhtiga waraysto wax badan buu isku hagaajistaa weliba wuu ka sii horreeyaa taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaasoo kale ahoo fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo barakoobayo markaa siday dadku ugu kala diyaargaroobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa ilaa 10 siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan 10 kale arrimoodoo hore aynu wadnay laakiin laga yaabo inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa midda horeysaa waxa weeye anniyatu saadiqa niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan ku sii jahaysannahay ayaamo yarina ay ka hadheen niyaddaadu inay wanaagsantay ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan inta aan kari karaan fulin niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa qoladii beder la soo qabtay ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxau idhi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukida minkum dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydinsiin doonaa ilaahay waa qalbi jire muuminiinta markuu ilaahay ammaanayey baycatu ridwaan qalbigoodu ku ammaanay laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay qalbigoodaasaa ilaahay waxa ay heleen uu ku siiyey marka in qalbigaagu wanaagsan yaho niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto inaad la soo diyaargarowdo ilaahay baaba kugu garabgelaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysaa waxa labaad aynu ku diyaargaroobaynaa alisticdaad biاtacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaana wa tacaala sii kordhinno garashadiisa garashada ilaahay addoonku uu garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahy magacyaal iyo sifaat macnahooda akhri alcaliim alsamiic albasiir alqaadir almelik alquduus magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso oo ilaahay siduu kuu eegayey siduu kuula joogay iyo siduu kuu ilaalinayay iyo siduu kuu maamulayay aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale awoodaha ilaahay adiga kaa muuqanaya caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa ilaahayna waad baranaysa markaad intaasoo dhan isu geyso ee aad ku qanacdo ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga oo uu jiro oo uu ku eegayo oo uu ku maqlayo oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin intaa markaad isu geyso waxaa ka dhalanaya haddaad intaa ku qanacdo inaad ka edebsatay ilaahay subxaana wa tacaala barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edebsato oo waxaynu naqaanaa ninka madaxda maalan ee qofku u shaqaynayo markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan intaa uu la joogo ee ishiisu ay arkayso wuu iska dhisaa wuu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa
kani hadduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tegayo wa huwa macakum mar walba wuu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kaleood iska eegi lahayd oo makhluuq ahba weliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa tacaala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriyaya muuqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyaadkaaga waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku heerkaa uu gaadho atacaruf cala allaahi baa leh ilaahay buu bartay waxaa markaa uu yeelanayaa askari isaga ilaaliya oo garashadaa ilaahay uu gartaya oo damiirkiisiioo toosaya naftiisii waxay gaadhaysaa in lagu tilmaamo allawaama nafta qofka canaanata nafina waa alammaara qofkay xumaanta faraysaayo waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa allawaama qofkiiba ilaahay addoonkiibay canaananaysaayo markuu isilaa xaaraanta same oo sawkan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu isidhaahdo ka tag oo sawkan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu isidhaahdo cibaadada ka sii jees oo soo adigan ilaahay hor taagan atacaruf cala allah waxay kordhisaa nolosha qofka macnay u samaysaa addoon dhababay ka dhigtaa inaynu arrintaa kordhinaano waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayno ama ku diyaargaroobayno waxaa ka mid ah alisticdaad biitibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam maxabati inaynu nebiga ku dayanno aynu jeclaanno dabeedna aad siiradiisa akhrida markay ramadaan soo galayso muxuu samayn jiray siduu u diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummaddiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa wey inaad ku dayato qofka aad jeceshahay waxaa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaargaroobaynaa afraad almuxaasaba inaynu nafteenna xisaabinno qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa cid ay wada xidhiidhayaan dowlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaayoo dadku la tashan karaabuu ayuu la tashanayaayoo wax diyaaru la yimaadaa kii kalena dee isagoo fashilan buu tegayaa cidduu la xisaabtamaya cidduu la kulmeeyaba meeluu marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waa inuu qofku naftiisa intanuu joogo adduunyada xisaabiyaa khayrka wakhtiga khayrka markaad kusii socotana xisaabtii sii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nebiga ka fahmay maqaaladahoodii mid qaar qaalaya bay ahaayeen oo dhaxal galay waxyiga u egaaday cumar binu khadaab wuxuu lahaa naftiinna xisaabiya intaan la idin xisaabinin camalkiinna miisaama inta aan la idiin miisaamin xasanulbasri waxa uu lahaa raximahu llah inamaa khafa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin xaasabuu anfusahum fi dunya wainamaa shaqa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin lam yuxaasibuu anfusahum fi dunya dadka qaarkood xisaabtu aakhiro way u fududaatay markay iyagu adduunyadiisa soo xisaabiyeen qaarna way ku adkaatay markay iyaguse soo xisaabin waayeen adduunkii iyagoo gebgebleh ilaahay oo hor yimaadeen markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guulaysto waxaynu ku diyaargaroobaynaa shanaad alisticdaadu bilusuumi alistiqaama waa inaynu tubtii toosnayd ee aynu ka baydhbaydhayna islaamka iyo diinta aynu naftii ku hagaajinaa istiqaamadoo la kordhiyo istiqaamada waxa weeye hadafkaaga iyo muraadkaaga iyo meeshii yoolkaagu ahaa aad ku socotay oo aanaad ka baydhbaydhin tusaale haddaynu soo qaadanno maalan qof baa waxaa la yidhi waxaad la kulmaysaa boqor hebel magaalo heblaaye ayuu joogaa halkaasuu kugu casuumayaa waddada loo maraano waa taa xaadhan ee halkaa cade furan inta raaxada kaaga hadhay waa intaad isaga gaadhayso intaa waad si yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho markaasaad wax walba iska dhigto rafaada boqorkaasi waa ilaahay subxaana wa tacaala magaaladaa uu kugu casuumayaana waa jannada dariiqanaad maraysaana waa kii islaamka haddaba haddii steerinkaaga intood qabato aad ku hagaajiso waddadaa oo si fiican aad u hayso ilaahay baad hoosgeliyaad gaadhi doontaa isna gacantu ku qabano casuumadduu ku geyn hadduu gaadhigu kula taraaro
ومرنا وضده وحقها وقبح مرنا وحقها وقبح هذا نبت كالعيس dadka wadada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuu mad la mid noqonaysa idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadano way steerinkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo maray islaamka la yiraahdo waan hada siraadi mustaqiman waxaynu ku diyaar garoobaynaa istidaad bi taharati alqalb qalbiga inaynu nadiifino qalbigii wax badan buu wasakhoobay shaydaan baa burushkiisii ku wada bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeeniya maalin bay saysataanoo naxli iyo nacaybsiiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysaa aad ku fikiraysaa qalbiga sidhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaadhay inaynu ka masaxnaynu ka dabcino waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda ilaahay baa inala hadlo wuxuu yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo inuu ilaahay dembiga idiin dhaafo idinkuna dadka iska dhaafa khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya inaynu dardaarankeenna sii qorno haysodhanin rabadaan maasha allah way sii dhowdahay raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonta dib u waraysa rabadaanadii inaga horreeyey imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u aha ayaynu aasnayba cisho ka hor 2 cisho ka hor maalin markuu sii soomay ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahee wakhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dardaarankoo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horeeya aanu dhab kula ahayn marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa saa daraaddeed kor haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay dardaarankaaga waa iska qornaado wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor ila dad baa kugu xidhane wixii kugu dayacmi lahaa ee dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisa lumi lahaana qor markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhiro ku jaahaysantay dadkan dhimashadaysi lowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii un ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayni ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah ma habboona buu ihi qofku hadduu shay uu dardaarmayaa jiro inuu 2 habeen seexdo isagoo bila dardaarana xallo wixii xuquuqa waxa la yaalo wixii mudan in wax laga sheego diin iyo dunyaba iska qor oo arrimaha inagu adag bay ka mid aynu haysanada hadduu qofku dardaaranka qoro malaa inay geeridu ku soo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa la soo gaabinayo waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikathrati dhikr xuska ilaahay inaynu badino subxaanahu wa tacaala xuska ilaahay inaynu badino oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo dariiqii aynu sheegayna la marayay speedkaaga iyo orodkaaga waxa kordhinaya ilaahay xaggiisa aad u ordayso ama jannada aad u ordayso waa dikrigan iyo xuska safar haddii lagu jiro waa la tartamaa gaadiidleydaa tartamo nin waliba gaadhi wanaagsan iyo wakhti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si wakhti hore uu gaadho meeshii uu ku socday marka jidkaynu marayno waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikriga ka mid ah siduu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa sabaqa almufariduun nimanka dikri yaqaanka ah ee daakiriinta ahi cid walba way ka dheereeyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sirtaa qiimaha badan waxay ka qaadan jireen rasuulkooda waxaa ku sugan saxiixa waxaa u soo cawday nebiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraan waxba badan haynin ama waxbaba haynin xaasidiin ma aha laakiin khayrkay jecel yihiin ee walaalahooda kula tartamayaan waxay idhaahdeen dahaba ahlu duhuuri اlujuur calaa macnaa qowli dadkii maalqabeenka ahaa wax alla wixii ajri ahaaba iyagaa isku fuuqsadayba intaanu samayno soon iyo salaad iyo intan oo dhanna way sameeyaa dee wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan annaguna waxba ma hayno waa calaancalaya maxaanu yaallaa nebigu calayhi salaatu wasalaam
khayrka kubaddiisiibuu usoo dhigay si qurux badan si ay u laadaanoo wuxuu yidhi waxa aan idiin sheegayaa buu idhi oo aan idiin warramayaa sir baan idiin sheegayaa shay baad samaynaysaan marka aa fashaan ee arrinkaa camalkaa qabataan cid idin gaadhi mayso kii idinka horreeyeyna waa gaadhaysa ilaa cid inta aad samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cidda aad dhex joogtaan wa kuntum khayra man antum bayna dahraanayh cidda dhex joogtaana idinkaa ugu khayr badan cidina idin gaadhi maysa kii idinka horreyna waa gaadhaysa tusabbixuuna allaha watukabiruuna allaha watuxamiduuna allaha fii khalfi aw fii duburi kulli salaa salaadaha dabadooda un dikriga ku dadaala buuli waa intaanaynu akhrina boqolkaa subxaana allahi walxamdu lilaahi wallahu akbar bal eeg inta dadka samaysaa way yarta assalaamu calaykum marka la yidhaahdaa irbadiisii kugu dhufanaya ama musbaarkiisii shaydaanku dabeetana hareeruhu qofkii eegaya meheradii baa ku sugaysa ebel baa bannaanka taagan bal ka gaadhsii horay buu u carareeyo qofki intaa yaroo 2 daqiiqo meelahaas ama 1 daqiiqo ah inuu 99 iyo markaa boqolaad intaa israaciyo way ku adagtay way adagtay waayo waa lagu heliyaa way ku sahlanaan lahayd laakiin waa kaligaa baanad ahayn intaas dadoo dhan kaga dheeraynaysa waa kii markaa nabiga haddana u soo cawday walaalahayo intii maqleeno way sameeyeen dee waa fadli ilaahay buuhi dhaqaalaha fiicaniye u haneeye waxaynu ku diyaargaroobaynaa alisticdaad bitaqwa inaynu alla kacabsigeennii aynu sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino alla kacabsiguna wax weyn weeye qur-aanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteennu waa alla kacabsiga 250 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa qur-aanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama camalkaasi leeyahay ayuu qur-aanku ina barayaa waayo waa sahayda u qaalisan ee adduunkan lagala tago alla kacabsigu dadka iyo dunyada iyo daaro way iska hadhayaan laakiin alla kacabsigaa sahay noqonaya watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa aqbalka iyo ijaabada camalkan aynu samaynaynaa haba badnaadee wuxuu ku xidhan yahay oo tayadiisa sal u ah alla kacabsiga innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin nin shaaciradaa waxau uhi tasawad min altaqwa fa innaka laa tadri idaa janna laylun hal taciishu ila alghadi fakam min fataa adxaa wa amsaa daaxikan waqad nusijat akfaanuhu wahuwa laa yadri alla kacabsiga sahay qaada ma ogid markuu habeenku madoobaada in subaxii aad gaadhi doonto imisaa nin dhallinyaraha oo cimrigu u cusub yahay waaguu baryey oo gabalku dhacay isagoo qoslaya kafantiisiina la tolayo oon ogeyn asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waxyaabahay dadka ku wacdigi jireen ee aada ugu baraarujin jireen waxaa ka mid ah alla kacabsiga uu dikrigu qur-aanku aada inoogu baraarujinaya iyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam maqaaladay ka tegeen alla kacabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafka oo dhaxalgala haddaad akhrido aada iyo aada u saameynaya qalbigaaga cabdillaahi ibnu mascuud waxa uu lahaa attaqwa an yutaaca falaa yucsaa wa yushkara falaa yukfar wa yudkara falaa yunsa alla kacabsigu waxa weeye in ilaahay laga amar qaato oo aan lagu gacan saydhin in ilaahay la xusuusnaado aan la ilaawin in loo mahadnaqo oo aan la dafirin ilaahay nicmadiisa subxaana wa tacaala caliy bnu abi aalibna waxau lahaa attaqwa alkhawfu min aljaliil waalcamalu biاltanziil wاlshukru biاlqaliil wاlisticdaadu liyowmi اraxiil alla kacabsigu waxa weye ilaahay oo qalbigaaga ku jira oo aan ka maqnaanin adigoo waxyigiisa ku camal fala wixii yar ee uu ku siiyeyna ku mahadnaqoon saloogin qiyaamahana u diyaargarooba waa maqaalado barakaysan oo runtii sheegaya qalbi nool inay ka soo baxayaan ugu dambayntii qodobka 10aad aynu ku diyaargaroobaynaa waxa weeye alisticdaadu liramadaana bitowbati ila allah inaynu ilaahay u toobadkeenna aynu usoo noqonno subxaana wa tacaala towbadduna waxa weeye inaad garawshiya bixiso addoon yar inaad tahay oo dhacdhiciisa iyo gafkiisa iyo simbiraxadiisu ay badan yihiin oo aan ilaahii weynaa u weynaynin oon uga xishoonin sidii munaasibka ahayd wamaa qadaru llaha xaqa qadri sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo ilaahay ku laabanaya oo ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dembi dhaafayaa oo goor walba ka warwaraya wixii qallooc iyo qaladaad ee ka yimid
alla ka cabsiguna waxa weeye waddada loo maro aan idhaahdee dembi dhaafku ama istikfaarta ama towbaduna waa waddada loo maro jannada horay baad ka sii qaadanaysaa miftaaxii jannada weeye ilaahay baa wuxu uhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin dembi dhaaf u degdega marka qaadataan jannada miftaaxeediidin noqonayo hore u gaadhaysaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna istikfaarta wardigiisa yowmiga joogtadaabu ahaa haddaad adigu isqancisay ama camalkaaga qaali u aragto ama aada iscajabisay yay taasi ku naftiya shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iidaysanin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu casharu inoo dhigayaa wuxuuna leeyahy maalintii walba astaqfiru llaha fi lyowmi 100 mara 100 jeer baan astaqfirullah 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 wa atuubu ilayh adigu intaad tidhaahdaa intaad xusuusataaba horta istikfaar waad ordaysaa une intaad ka xun tahay dembigaad samaysay intee buu kula weyn yahay camalkaad samaysay wax la yaab badan weeye weliba marka aakhiru cimri qofku uu joogo cimri qaalibkii ama uu ku sii dhowaado waa inuu istikfaartiisu korodhaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeridii soo dhowaatay istikfaartu aada u badinayay caaisha hadday weydiisayna wuxuu nebigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiya calaamaddaa markaan ka arko waxaa sheegaysaa in cimrigayga uu soo dhowaaday sidaa daraaddeed ama geeridaydii soo dhowaatay istikfaartan badinayaa waa macnaha ay sheegaysa idaa jaءa nasru اllah wاlfatxu wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba istikfaarta iyo towbadda isku dar cimrigaaga gebagabadiisu waa inay taa noqotaa marka 10kaa shay haddaynu samayno waxaa laga yaabaa in qalbigeennu safoobo camalka aynu ku jahaysannahay qiimaha badanna aynu wax badan ka qabsan karno fursaddana aynaan dayicin وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا برمضان بأمن وإيمان وسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم